leenahay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ha iska ilaaliyeen in ay ka sameeyaan galmudug dhexdeeda dagaal inay ka sameeyaan oo ay ku soo qaadaan magaaladan Guriceel dagaal inay ku soo qaadaan ayagoo xoogii dalka Soomaaliyeed ah ayagoo dan gaar ah fulinaya arrinkaasna waa ka digaynaa waa inaan la qaxin dadka waxa lagu jira waqti roob ah waqti qorax ah ma u malaynahay runtii mana malaynayn in shacabka Guriceel looga aarsanayo maxaa culimadiina u soo dhaweydeen oo ugu bannaan baxdeen baaqyada nabadeed ee ka soo kala yeerahaya qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxaan halkan ku cadaynaynaa annagoo ku matalaynaa ahlu sunna wal jamaaca in aan soo dhaweynayno baaqi ka soo yeeray culimada diinka ahlu sunna wal jamaaca ee Soomaaliyeed ee meel kasta ha joogeen ku baaqeen nabadda gobolada dhexe khaasatan galmudug magaalada Guriceel waxaan soo dhaweynaynaa codkooda ay ku baaqeen nabadda iyo waxa la wixii jira in lagu dhameeyo wada hadal iyo isafgarad waxaan soo dhaweynaynaa baaqi odayaasha dhaqanka galmudug ay soo jeediyeen ay ku baaqeen iyaguna nabadda iyo in la joojiyo xabadda isagana waa soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa baaqi siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan ay soo jeediyeen iyaguna oo ku baaqeen arrinka galmudug in nabad lagu soo dabaalo oo xabadda la joojiyo wixii la kala tirsaana lagu dhameeyo wada hadal waxaan soo dhaweynaynaa baaqi ay soo jeediyeen UN-ka iyo safaaradaha Soomaaliya ku yaala oo iyakuna ay sidaas oo kale ay ku baaqeen in nabad la qaato xabadna aan la ridin wixii tabashaana lagu xalliyo wada hadal baaqyadaas oo dhan waa soo dhaweynaynaa garabkeenu aad baan u soo dhaweynaynaa inta ka shaqaysay waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin ayaan leenahay annagu cidna duulimaad kuma nihin waxaan ilaalinaynaa danta shacabka Soomaaliyeed ayaan ilaalinaynaa waxaan ilaalinaynaa danta shacabka galmudug ayaan ilaalinaynaa waana nala ku yaqaan horay ayaan u ilaali jirnay galmudug gogasha ay isugu timid cidii dhigtay baan nahay hadii aan ahlu sunna wal jamaaca annaka ku midaynay mana aanan u haysan dadkii mideeyay inay beegsanayso ma aanan u haysan waxaan isku ogeyn inaan wada beegsano shabaab inaan wada beegsano taas ay ahayd aan wixii annaku aan doonaynay laakiin ujeedadii in si kala loo khaldo oo loo adeegsado waa nasiib darro in looga aarsanayo bannaanka taga la leeyahay oo ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya ee loogu talagalay loona maalgelinaya inay shabaab la dagaalamaan wadankana amni ka dhigaan inay ayagu amni darro ka shaqeeyaan oo ummadda qaxiyaan oo ummadda bannaanka geeyaan roobka iyo kaneecada iyo shubanka iyo waxaas u banbixiyaan arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u yaab leh taariikhdaana qoraysa waxa weeye marka arrinka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkii toosinayay dariiqa fiican ku duwaya baana dadkii ku tawjiihinaya la dagaalanka argagixisada baana halkaas inaan u tawjiihino ayaan diyaar u nahay inaan isu gaashano garab ay noogu noqdaan annaguna ugu noqono isu garabsano amniga Soomaaliya amniga galmudug ay naga gacan siiyaan amniga galmudug yacni ay ku dadaalaan
taasna aad baan ciidanka qaranka Soomaaliyeed aan ugu boorinayaa iyo taliskoodaba waxaan leenahay galmudug waxaan aad iyo aad yacni ugu tirtirsiinayaa inta ay ka dhaxaydaa inay ilaashadaan oo ilaaliyaan sidii ay u ilaalinayeen nabadoonnadii ku dhawaaqay nabadda iyo xabad inaysan dhicin oo kaleeto waa in ay shaqeeyo caqligu waa in uu shaqeeyo يعني عقله إنه شقي علمه شقي وي الحمد لله رب الوطن كان وحوي ديغامداني ديغامدي عن دفاع إنه خوارج تكحر إني مدة أديك اللبية 10 سنة 16 سنة كله عن قعنت كوي نوي قل مدقنا عن السوق كأني وإني قل مدق إلى شتاه إن قل مدق لحديده دبات عيسى كدع وين كو إلى شدان إن حبضوا كدع وين كو إلى شدان وإني أمي دوبان عدي حبض الأردين اللي أقاده وحبض ربط إني وحكو حليدو إيه حوق وين وإن لو وضع أركي جوج اللي يراده الحمد لله رب العالمين أرماس رنتي آد أيان انتي كشقايدي ugu mahad celinayna deegaankaani waa amni wax dhibaataahi kama jiraan waxaan ilo ku soo dhaweynay markii annagu aan nimid hatta waxaan ir maamulkii ka shaqeeyo shaqee amnigii ka shaqeeyo shaqee waa idinku gacan siinayna waxa la waxaad iska tabanaysaan shabaab carada wax ka afduuba la idin ka ilaalinayna korjoogtadaas aan noqonaynaa deegaanka oo dhan iyo aanu noqonaynaa markii sidaas aan ir annagu isu diyaarinayno meel cidla degan oo isla khawaarijtaas aad isu diyaarisaan oo dadka u carbidaan maadaama ay qaadatay baabuurtii galmudug baabuurtii maamulkii galmudug baabuurtii madaxdii galmudug ay qaadatay waxaan niri shacabkii oo qayliyaya baan u nimid markaas inay daydiidaan haddana waana ka aqbalna markayna soo dhaweeyeen in la yiraahdo xaadi soo dhaweydaan oo shabaab aan uga daraano maamulkii waxaan maleysanaynaa ma marka arrinkaas aad iyo aadaan bulshada galmudug u bogaadinayaa sida ay isu bahaysteen waxaan kala bogaadinayaa culimada ahlus sunna wal jamaa meel kastay joogaan waxaan bogaadinayaa culimada u istaagtay inay shacabkooda iyo bulshadooda difaacaan oo ka difaacaan khawaarijta ka difaacaan meeshii loogu tala galay dawladda federaalka inay gacan siido oo ciidamka xoog u xoojiyo ciidamada yani waxa weeye runtii waxa weeye waxaad moodaa si kale in dhaqankii noqday arrinkaas iyadana waa ka digaynaa bulshadana waa u mahad celinaynaa qaybaheeda kala gadisan waxaan idin leenahay shukran lakum jazaakumullahu khayral jazaa waxaan leenahay bulshada yani la qaxiyay oo banaanka loo saaray waxaan leenahay ku soo noqdo guryaheena waxaan leenahay intii wax qaba karta waa inay bulshada wax u qabtaan haday tahay hay'adaha haday tahay ganacsatada haday tahay bulshada qaybaheeda kala gadisan waa in dadka dhibaataysan wax loo qabto qof muslima oo dhibaataysan wuxuu gala ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ka thawaabinaya waa u gargaaraya